dugsiga sare ee ganacsiga iyo xisaabaadka ee adalti dadkii abartii oonku ku raageen la asqoobay haraadka aqoon baa harayso aaran bay dhaxurdaan tacliin aabaheediyo adalti bay dhaxlayaan midkii abaabul iskuul been ku furto ardaydeena siraayay adalti baa ka shifo albaabadii ka xirto af miishaar u luqaatay xisaabaan la aqooniyo inkaar la isku ridaayo iyadoo inkirmaadu kordhayso adalti baa la furo aqoontii laga helay baa aadmigu ku kala baxay xisaab ilinkeedii aqalkay ku hoyatay aan baqaadka dhaqaale adalti baa ku baraayay markaa la imo inta aan ku iri iyo aqoontiisa soo arag hadda ii noqon mayso aqoon waan ka gudbo oday baan gaaray haddeer afkuu noqon mayso oogadaan ka ciroobay adalti baa la furee markaalayo soo arag isaga aqoonta xisaab ganacsi kii u adkaa axmed oo ku baraya dugsiga sare ee ganacsiga iyo xisaabaadka adalti waa mid ka dhan iidhah iyo weliba tilmaan haystana kalsoonida aqoon-yahaniinta oo idil waana mid si xawli ah ugu sii fidaya dhammaan gobollada dalka Soomaaliya mashquul baan ahay ama da'dii ardaynimo waan ka imid muranka waa la xaliyay oo adalti baa loo furay waxa uu farciyo ku leeyahay ceelasha biyaha guraceel jawhar beledweyn iyo goobo kale oo badan xarunta ugu weyn waxa ay ku taallaa inta u dhaxaysa jidka koowaad iyo jidka labaad ee bakaaraha ama magacaygu waa ustaad maxamed Usmaan Macow oo ku magacdheer ustaad Macow waxaan ahay maamulaha iskuulka Adult Commercial Secondary School isla markaasna macalinka waxaan soo dhaweynaynaa dhammaan ardayda Soomaaliyeed ee tacliinta jecel waxbarashada jecel waxaan u haynaa waxbarasho tayo leh ee ku qancaan iyo waqti kasta oo ay wax baran karaan waxaan ku soo dhaweynaynaa dadka waaweyn ama waqtigoodu uu yar yahay in aan u hayno koorsooyin iyo dugsi sare intuba oo baxa subaxii 12 saac oo subaxnimo ilaa 2 saac iyo bar ardayda kale ee dhalinyarada ah ee u baahan koorsooyinka dugsiga hoose dhexe ama u baahan dugsiga sare oo iyaguna iskuulka soo gala 2 saac ilaa iyo 6 saac gacmo furan ayaa labadaba ku soo dhaweynaynaa iskuulka Adult Commercial Secondary School waa iskuul dugsi sare ah ka tirsan ama hoostaga dalladda waxbarashada ahliga ee SAF kana mid ah iskuulaadka dugsiyada sare ee ka qayb gala imtixaanka dugsiga sare ee wasaaradda waxbarashada dawladda federaalka Soomaaliya iskuulka Adult oo ay ka qalin jibiyeen ilaa 5 difcadood oo ay ugu dambeysay difcadii hadda ugu dambeysay sanad dugsiyeedka 2018-2019 siyaas awgeed waxaan idin haynaa waxbarasho tayo leh waxbarasho aad ku qanci karto haddii aad tahay qof weyn iyo haddii aad tahay qof daayar intuba aad u maasantihiin ku soo dhawaada gacmo furan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu electric force awooda korontada ama waxay dhahan Columbus law sharciga Colombo oo kaga hadlaya waxay dhahan korontada Columbus law ninka la yiraahdo Colombo ay wuxuu sheegaa status ay wuxuu leeyahay that the force waxay dhahan xoogaas waxay dhahan of interaction ee isdhexgalka ama wax la yiraahdo xooga gudbinta dhanka 2 points charge labada calaamadood labadaas oo waxay dhahan in a vacuum marka wax la yiraahdo ay ka gudbayaan meel maran is directly si toos ah proportional ayaa waxay ugu qotontaa waxay dhahan proportional waxay ugu qotontaa to the product isku dhufashadaas oo of the two charges labada calaamadood taasoo wax la yiraahdo anda iyo inversely si rogaal ahna proportional waxay ugu taagan tahay to the distance ama waxay dhahan to the square laba jibaaranaha of the distance waxay dhahan fogaanta between u dhaxaysa them iyaga labada calaamadood waa iskuulka waxa dhigtaa suuqa adalti waxaan Soomaaliya qaybta subaxdii waxaan fasalka form 4 oo sadka bilaabanayo insha Allah baan ku diyaarsan si aan u dhameystir lahay waxbarashada taamka aad iyo fasalka waxbarashada aad u faraxsanahay magacaygu waxaa la yiraahdaa Cabdullaahi Maxamed Cali waxaan ka mid ahay ardayda iskuulka adalti dhigato waxaan ahay fasalkii waxa waaye form 4 markii aan waxbarashada in muddo ayaan mataqaanaa aan waxbarasho aanan soo gelin oo weynaan ahay laakiin dadaal ay sameeyeen macallimiinta iskuulka adalti iyo maamulayaasha intaan waxbarasho waxaan ku helnay waqti
fursaddeena aad qaaliga aan uga faa'iidaysano oon iskuulka aan waxbarashadeena uga faa'iidaysano alxamdulilaahi waxaana ku mahadsan maamulka iyo macallimiinta iskuulka dhaltay waxbarashadaas ay noo heleen oo maxaan ku sheegay annaguna aan ka faa'iidaysanay waqtiga subaxda hore LCD ah waxaan soo galnay iskuulka 12 waxaan ka baxnaa 3 saac marka intaasna waxaan helnaa waxbarasho nagu filan oo aan isleenahay waqtigiina iyo mustaqbalkiina waa idin kaafinaysaa arday dhigata iskuulka dhaltay sanadkan form 4 waxaan soo galay subaxdii 2 saac ilaa waxaan baxay 3 saac bar ma sha Allah waxbarasho fiican meeshaan ku haysanaa waxaan rajeynayaa sanadkan inaan dugsi sare ka baxo heerkii waxbarashada wax badan ka gaaro ma sha Allah waqti badan oo dhaafay laakiin hadda waxaa imaado Soomaaliya iskuulkeena dhalto waqtiyadan dhaafo dhan gadaal noogu soo celiyay inaan ka faa'iideysano fursadan qaali waan oo soo ma sha Allah waqti kasta horta shaqada way iska badan tahay adduunkan dadkan way wada shaqeeyaan laakiin waxa leeyahay dadka aan wax baran hore u soo baran lahayn haddana aan wax baranaynin in fursadooda qaaliga ay ka faa'iideystaan ee siiyaan fursadooda inay wax bartaan in adduunka bas ay sii fiirin waxbarashada waa nolosha furaheeda Iguna Siyaam Xasan Cabdulle salaamaya dhammaan ardayda dhigata iskuulka adalti macallimiinta iyo maamulka ardayda igu dhiirigeliyay iskuulka inaan wax barso anigu aan dana xoogaa iska da'yar laakiin waxbarasho yaraan weyn ma laha si fiican baan u arkaa inaan wax barto anoo xoogaa iska da'yar fasalka waxaa galaa 12 waxaan ka baxay si weyn buu heer sare u hayaa أولاً السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا أيضا فرحية حسنة ليغتو سكول كادلت سكندري سكول waxaan wal madaxweynaha macallimiinta dhammaan iskuulka dhammaan waxaan sameeyaa iskuulka adalta dhigato waxaan wardkayga walaalay inta dhammaan ka qayb qaateen wax barto idina dhiirigelisay wax barto waxaan ku faraxsanahay iskuulka adalta inaan ka qalin jabiyo insha Allah haddana waxaan fasalka ugu gudboofamaan dugsi hoose dugsi dhexe ka qalin jabiyo waxaan rajaynayaa in adalta secondary school aan ka baxo dugsi sare in aan uga baxo insha Allah